Sheikh Ahmed Jawhari iyo Hibo Cumar waa lamaane isqaba oo caruur isu dhalay waxayna ku nool yihiin magaalada Birmingham ee dalka Ingiriiska. Waxay u ololeeyaan arrimaha jacaylka, guurka wanaagsan iyo wanaajinta xiriirka qoyska. Haddaba waxaan kula kulmay magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalka Norway, iyadoo ay suura gashay in aan wareysi la yeesho. ugu horeyn waxaan idinkaga mahadcelinayaa wareysiga aad iga ogolaateen adiga iyo marwadaada ku soo dhawaada barnaamijka iyo wargeyska aayaha noloshaba. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين walaalkay bere aad u mahadsantahay adiga iyo wargeyska waan downahay aniga Hibo Cumar aad baan u mahadsantihiin sida aad noo soo dhaweyseen fursadan aad noo siiseen su'aasheeda ugu horeysa waxay tahay waxaan weydiinayaa ustaad Jawhari sidee lagu heli karaa guur wanaagsan oo ku dhisan jacayl. بسم الله الرحمن الرحيم waxaan isleeyahay marka hore jacaylku sidiisaba magacaan badan iyo maaragtay macno badan ayuu leeyahay midi waxaa la yiraahdaa waa mid qofku marka uu qofka arko uu ay ka qabsato midna waa mid ku dhisan ujeedi iyo hadaf runtii iyo dareenkan oo si rasmi ah loo cabiro marka sidee lagu heli karaa guur ku dhisan jacayl iyo raxmad iyo naxariis. waxaan oran karaa waa guur ku salaysan ama xiriir ku salaysan diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo wuxuu Ilaahay ugu talagalay in lagu wada noolaado fahankeeda in la fahmo marka dadku inay caburiyaan ma aha dareenkooda oo qofka uu qabo qofka kale haddii uu weel yahay iyo haddii ay gabar tahay laakiin waxay u baahan tahay in la toosiyo oo la hago oo loo hago sidii saxda ah sidee lagu heli karaa kow aniga waxaan oran karaa dabcan Hibana way iga dambeyn doontaa inuu qofku ku baraarugo naftiisa inuu is ogaado horta wax ma jeceshahay mise ma jecel qofka aad jeceshahay muxuu yahay maxaad ku jeclaatay adiga xataa haddii lagu jeclaanayo maxaa lagugu jeclaanaya waxaan oran lahaa marka dadku ha isku doortaan taladii nabiga sidoo inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam in la isku doorto diin ba asal ah macnaheedu kama dhigno quruxdu waa la diidan yahay maalku waa la diidan yahay nasabku waa la diidan yahay kama dhigno intaba haddaad isku heli karto alxamdulillah waxaa ku doorataa qofka ku jeclaataa khuluq dabeecad dhaqan waxaan dhihi lahaa marka guurka diin iyo khuluq lagu dhisay waa guur ama qoys waara insha Allah ta'ala wuxuu u baahan yahay marka dareenka jacaylku in la quudiyo oo la dhiso si uu u ziyaado uu u daa'imo haddii kale uu dhiman nabigu xadiis bi noo sheegay uu yiri al-iimaanu yaziid wa yanqus iimaanku ziyaadaa una naaqus ma yaziid bi a'maali saaliha amalada wanaagsan buu ku kordhaa ku naaqus ma macsiyada saasoo kale dareenka aan qofka u qabto wanaag iyo ihsaan markaad kula dhaqanto uu ziyaadaya dareenkaas haddii xumaan iyo maaragtay dagaal aad ku bilowdana ka bacdi markaad kulantaan naaqus ma yahay. بسم الله الحمد لله aad baan kaaga mahadcelinayaa bile insha Allah in codkayga in la maqlayo in sha Allah waxaan su'aashaas waxaan anu kaliya ku darlaynto Ahmed sheegay marka laga soo tago in ay maadartay labada qof marka is jeclaado horta jacaylku inuu jiro inuu qofku aaminsan yahay jacaylka ma aaminsan tahay weeyaan haddii aad jacaylka ku dheeldheelay sidoo maadartay adiga dhanba aad aaminsanayn ma garan karo inuu maartay jacayl dhaba ka imaan karo marka haddii aad aaminsantahay jiritaankiisa waxa weeyaan oo uu kugu dhaco waad ka faa'iideysan kartaa runtii waa dareen cajiib ah adiga adoo lagu jecel yahay ayaa adduunka timiday ilaahay jacaylkiisa ku timiday ilaahay wuu ku jecel yahay waa ka bilaadan ka dhigay waalidkaaba intaas oo dhan ku soo jeclaa adigu walaalaad leedahay hadduu ilaahay ku siiyay asxaab baad leedahay laazim noloshaada jacayl u soo maray laakiin guurka marka la yimaado jacayl ka duwanka oo ka xeel dheer ayaad galaysaa biidnillaahil kariim marka jacaylku waa jiraa laga faa'iideysto insha Allah qof walbana waa u baahan yahay waxa maadartay lagu koobcin karo sidoo Ahmed sheegana waa in aad ogaatid in ballan aad gashay qofba haddii aad isxalaashateen ballan baad gashay ilaahay baana ballan la gashay wiilkuna gabadha ilaahay magaciisa ayuu ku xalaashanaya marka inuu xalaashaas ilaaliyo iyo ballanta uu ilaahay la galay inuu ilaaliyo ee la adkeeyo biidnillaahil kariim jazakallahu khayr.
aad ayaa u mahadsantihiin jawaabta waafiga ah ee aad labadiinaba aad ka bixiseen haddii aan usii gudbo dhinaca su-aalaha su-aasheeda labaad waxay tahay maxay ku kala duwan yihiin guurka jacaylka ku yimaada iyo kan aan ku imaanin ustaad hibo jazaak allah khayr bale guurka jacayl ku yimaada anigu de wuxuu ka horeeyaa baan leeyahay kan jacayl ku yimin wax aad u fara badan buu ka horeeya waayo labadan qof baa quluubtooda wax isku xireen quluubtiibaa isku xirantay ya laakiin kan jacayl ku imin amba familigiibaa isku daray amba danbaa isku dartay amba nin lacag leh gabadhii maad aragtay istiri walle si kale oo maad aragtay ay noloshan kaga baxaysid ma jirto ninkaa ka agdhawow amba ninkiibaa gabadhii maaragtay dani u geysay waxyaalahaas waa wax material ah amba waa wax ka baxsan quluubta wax ka baxsan laakiin qofku haddii ay labadiisa qalbi ay labadooda qalbi dadku hadday isku xirmaan jacayl buu kaas ku yimiday kaas baana kasii xeel dheer waxaan kaloo dhanna lagu helaa biidni illaahi alkariim marka way kala duwan yihiin laakiin kama dhigna labada qof ee duruuf kale ku kulantay amba la isku daray jacayl kama dhex dhalan karo kama dhigna waayo dadku hadday ku dadaalaan jacaylku wuu iman karaa jacaylka lagu sheegana wax kale maaha runtii waxaa aad u macneeyey sheekhii maad aragtay ixyaa culuumudiinka qoray maad aragtay abu xamiid maad aragtay al-Ghazali ayaa ka sheekay wuxuu dhahay jacaylka lagu sheegaba waxa weeyaan waa danaysi dhinaca la eego buu dhahay si yar cajiib uga sheekay leena haddii aan maanta waji fiican iyo hadal fiican tiraahdo wax fiican siis waaban ku jeclaanba ilaahu haddaan ninkayga ahayn qof bilaadan caadi iska tahay marka jacaylku dan ayuu ku xidhay bilaadanka dhanna waxa weeyaan in meeshuu dantiisa ku jirto amba meeshuu naxariis ka helayo amba meeshuu wanaag ka helayo ayuu jeclaadaa ya marka in jacaylka rasuulka iyo jacaylka ilaahay noo qabo baana shardi ku xidhneen iyo jacaylka waalidka shardi kuma xirna waalidka wuu ku jeclaanaya sidaa doontid doqon maadahaatid maad aragtay fariid maadahaatid waxaa doontay maad ku jecel yahay laakiin jacaylka dadku isku qabaan dan ayaa badanka sababta ayaa la yidhaahdaa marka in yaroo xaasidnimaa dadka ku wada jirta oo keensanaysa inuu qofba ka agdhawaado wixii isaga dani ugu jirta iyo wixii isaga u wanaagsan marka walaalayaal jacaylka waan u baahannahay biidni illaahi alkariim waana ku noolnahay in aan dafirnana maaha inaan hoos u dhignana maaha ya inaan Soomaalidu aad bay jacaylka uga sheekaysaa ay maartay ugu heesaan ay ugu gabiyaan laakiin ma muujiyaan labada qof markay kaliis ku noqdaan inay isku muujiyaan ayaa la rabaa biidni illaahi alkariim jazaakumullahu khayr waxaan ku darsan lahaa waxay ku kala duwan yihiin baa leeyahay waa inta hiba soo sheegtay khayr allah siiyo midi waa mid dan ku yimid midka asalka ee rasmiga ah waa midka qalbiga ka soo go'ay waa dareen markaas qalbiga ku jira nabigu calayhi salaatu wassalaam wuxuu jeclaaday khadiijana nabiga way jeclaatay radiyallahu anha marka waxaad arkaysaa jacaylkaasi in uu dhab yahay khadiija markay dhimatay radiyallahu anha nabigu calayhi salaam wuu ka sii sheekayn jiray oo saaxiibadeed buu xidhiirin jiray maadaama uu jeclaa nabigu wuxuuna yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh rusiqtu xubbahaa waxaa la igu arsaaqay jacaylkeeda khadiija ilaa ay gaadha caaisha ay tiraahdo islaantaan cajuusadee waa hor maaragtay adduun ka tagtay maxaa kugu wareeriyey mid ka khayr roon buu ilaahay ku siiyey ayadoo iyadu isku jeeda nabigu wuxuu yidhi maya ilaahay ima siinin mid ka khayr roon intuu wejigiisu casaaday nabiga sala allahu alayhi wasalam wuxuu nabigu yidhi wakti ay tolkaa iyo maaragtay carab oo dhan ay diiday ayay garab ii noqotay khadiija oo ay maaragtay i garab joogsatay marka waxa weeyaan jacaylka يعني guurka ku dhisan jacaylka uu ka xeel dheer yahay guurka ku dhisan maxaa ku raday isa siinta iyo maaragtay isku geynta ma abuurmaa uu abuurmaha dadka la isku daro uu abuurmaa dhexdooda laakiin kan hore waa maxay waqti fiican baa la isla qaatay waa la isla fahmay noloshii dareenkii baa la isla fahmay maskaxdii baa isku xidhantay isa siintii iyo wax kala qaadashadii baa dhacday su-aasha meesha dadka qaarkood ay isweydiin doonaan waxaa dhici karta bilow inay yidhahdaan miyuu jiraa guurka hortii jacayl haa baan idin leenahay wuu jiraa dadka ku dooda jacayl guurka hortii ma jiro macnaheedu bilaa dareen baan nahay weeye kuwaas marka cid bilaa dareenana dee ma jirto adduunka xayawaanku xataa dareen bay leeyihin maalin waa nin libaaxi maaragtay gooshiisa goosha kaga jiraan idin tusay marka kaasaa sax ah oo fiican laakiin kaasi wuxuu u baahan yahay in la dhowro oo la ilaaliyo haddana mar kale
بارك الله فيك aad ayay u mahadsantahay ustaad waxaan rabaa marka inaan adiga kugu soo noqdo oo aan ku weydiiyo su-aasha saddexaad ee xigta barnaamijka ma isdhihi karnaa laba qof oo markii hore aan jacayl isku guursan inta ay wada nool yihiin ayaa waxaa dhex mari kara jacayl ka weyn kuwa markii hore jacaylka isku guursaday marka laga dhaqaaqo runtii waa su-aal bulshada dhexdeeda ay u baahan yihiin bulshadu inay isfiiriso runtii ma dhacdaa inay dad isguursadaan iyagoo oonan isjecelayn marka hore amaba wax jacaylaba uu dhex marinba wax cilaaqaba dhex marinba jawaabtu waa haa waa buuxaan waxaa dhici karta aabbayaasha qaarkood inaynan isku guursanin iyo hooyooyinka qaarkood inaynan isku guursanin jacayl waxaa dhici karta dhalinyarada qaarkood inaynan isku guursanin jacayl hormaray ama dhex maray bilowgii intaynan isguursanin ma yimaadaa jacaylkaasi oo ma dhici karta in uu ka fiican yahay kuwa marka hore jacayl isku guursaday haabaan leedahay way dhacdaa maxay see ku dhacdaa maxaa sababaya inuu dhaco waxa sababaya waxa weeyaan ixsaanka iyo wanaagga iyo ixtiraamka iyo qadarinta iyo respectiga labada qof ay isku muujiyaan iyo waxaysiinta inta aan soo sheegay oo dhanba waa sunnadii iyo waa diintii maxaa yeelay nabigu wuxuu yidhi tahaadu taxaabu waxay isku hadeeyeen oo isjeclaanaysaan goormuu jacaylkaasi yimiday hadiyadii marka la isa siiyey hadiyadii maxay kobcisay jacaylkii bay kobcisay labadii qof marka dadku markay ixsaan isku sameeyaan way isjeclaadaan way ka fiicnaan karaan marka dad iyaga oo hore isku jeclaaday markay isguursadeen aan ixsaan isku samaynin jacaylkoogiina uu baaba'ay cagsigay marka ku yihiin kuwaas waa wax dhici kara hakaliya waxaan odhan lahaa sida u dhici karto laba qof oo isjecel inay beri isnacaan oo afcaal iyo aqwaal iyo waxaasoo dhan ay isku nacaan waxbaa sababay nacaybkan xataa cirka kama soo degin ayaa laba qof oo kolka hore amba dan kale isku guursatay amba la isku daray ay isku jeclaan karaan haddii afcaashii iyo aqwaal wanaagsan ay la yimaadaan oo uu abuurmi karaa jacaylku uu abuurmi karaa mar walbana qofku qalbiga dareen buu leeyahay wixii la tusay wixii maaragtay loo sameeyay sida loola hadlo way saameynaysaa dhagax qofku kama samaysna marka jacaylku mar walba uu abuurmi karaa da'du doonana ha ku abuurmo duruuftu doona ha ku abuurmo marka iyadoo la isqabo oo kolka hore dan kale la isku guursaday ayaa gadaal la iska jeclaan karaa ما شاء الله وحان أمرنا إن دad badan aad u fahmeen jawaabtaas waafiga aad ka bixiseen su'aashaas oo runtii dad badan ay isweydiinayaan haddii aan hore u sii wado dhinaca su'aalaha markaan wax rabaa ustaad hibo inaan weydiiyo dhaqaale xumidu ma noqon kartaa caqabad hortaagan guurka wanaagsan iyo in la helo lamaane si dhab ah ugu kalsoon jacaylkooda dhaqaalu horta runtii waa wax loo baahan yahay oo ilaahay waa kama daragtay in nagula dardaarmay in xoolaha xataa sufahada aanan lagu dhaafin oo meel sare ayaa la dhigay oo loo dhiibin oo lagu dhaafin insha Allah marka waxa weeyaan in dhaqaale la samaysto waa muhiim jiddan marka casharadeenna waxa ku jira labada qof ee isqaba sidee dhaqaale u wada samaysan karaan ila dhaqaale sidee u heli karaan sidee u wada shaqaysan karaan maanta oo afar gacmood ay yihiin afar ma aragtay indhood ay qabaan intaas laba af ay qabaan intaas oo dabal wax walba Ilaahay uga dhigay marka singalnimana laga saaray laba aqli isku yimid ay noqdeen in ay wax badan oo inkama ay sameyn karaan marka waxaad moodaa in dadka qaarkood ay iska caqabadeeyaan oo ay iska cadaadiyaan dhinaca dhaqaalaha Yurub marka la fiiriyo wuxuu ku jiraa sababaha keena furitaanka sababaha ku badan ee dadku u kala tagaan waxa loo aaneeyaa in dhaqaalaha ayaa loo aaneeyaa aniga ma waxa iska leh laakiin istaadiyo badan oo lagu sameeyay marka la fiiriyay faktorada ugu waaweyn amba asbaabta ugu waaweyn ee keena inay dadku isfuraan dhaqaalaha kamida marka dhaqaale xumidu uu laazim noloshaada oo dhan ayay saameynaysaa ilaa inteed ku jiri kartaa dhaqaale la'aan ilaa inteed noolaan kartaa noloshan qurbaha ee ku noolnahay ee waliba ka hadlayno maanta dhaqaale ayay ku dhisan tahay tallaabadaad qaadidba dhaqaale dad waxaan la joognaa nin walba naftii uu fikiraayo ma adeerkii iyo habaryartii iyo eedadii iyo cidii ku caawinayso dhan iyo family iyo tolkii meeshan kama jiraan marka waxa loo baahan yahay dhaqaale in la abuuro in laga shaqeeyo in la kalmo wayna saameynaysaa laakiin waxa ka horeeya labada qof caqabayn inay isku noqon waxa yar haystaan haday iibaan ku qabaan ay iska bismilaystaan ay maartay plan u samaystaan budgetkooda ay ilaaliyaan inta soo galaysa inta ka baxaysa la isku miisaamo maartay credit lagu noolaan
waxaasoo dhan way fiicantay lianna deymaha la qaadanayo reeraha way burburisaa aad bay u burburisaa lama oga marka waxa weeyaan xataa su-aalaha dhalinyartu inay isweydiiyaan waxaa ka mid ah oon u diyaarino in dhalinyarta jaamacadaha ka baxaan intaasoo deynaya walwihiin jaamacadaha qaarkood ka baxaan marka qofkii uu waqaamaysan yahay culays ayaa saaran culayskaasina faamiliga ayuu ka go'i doonaa marka bal xagga deynta qof walba inuu deyn qabo in layska waraysto waa waxyaalaha aan ku darno runtii oonan maaragtay afrika haddii la joogo iyo caraba haddii la joogo aanan la isweydiinayn marka walaal waxaan kusoo koobi lahaa dhaqaaluhu waa qayb lixaad maa la yidhahdaa weyn aad u weyn baan ka wadaa oo ka qayb qaadanaya nolosha labada qof biidni illaahi alkariim insha allah in laysla fahmana waa loo baahan yahay in waxyaalaha dumarku ay habbi ku noqdaan amba ay jecel yihiinna waa dhaqaalaha runtii dhaqaalahan jecelnahay ina nagu ciilin ina nagu soo koobin marka wiilku waa aragtay inuu ku xisaabtama ayaa la rabaa ummadeennuna waa ka dhihi jirtay maaragtay col maaragtay hortiina hub samayso guur hortiina dee dhaqaalo yeelo biidni illaahi alkariim jazaaka allah khayr reer hortiin maaragtay xoolo yeelo waxaan ku dari lahaa keliya inta ay heba sheegtay ilaahay khayr siiyo in la isweydiiyo inta aanan la guursanin gabadhu maxay jeceshahay oo ninku isweydiiyo gabadhu waxay jeceshahay nin gacan furan hadda waan idiin sheegaya wiilashay ku socotaa jawaabtaas gabadhu waxay aada u jecel yihiin wiil gacan furan oo aanan ku ciilaynin waxbixinta iyo waxsiinta haddaad ku fiican tahay jaanibka waa jaanis badanna si badan baad leedahay inaad gabadh fiican oo wanaagsan aad hesho gabadhana waxaa laga rabaa inayna ka daadaadine markay aragto wiil gacan furan ay iyaduna u ururisa noqoto haddii kale waxaa dhici karta inuu kaa cararo markuu ka arko inaad wax walba weydiinaysid ka bixi ka samee kan idinkooba isguursanin xataa marka shukaasiga lagu jiro waa meelaha laisku tijaabiyo ee la ogaado inuu qofku gacan adag yahay inuu gacan furan yahay dhinaca kalena laga ogaado inay gabadhu daadaadis badan tahay iyo inay ururis badan tahay marka arrinta dhaqaaluhu waa arrin aad muhiim ah casharkeenana way ku jirtaa in dhaqaalaha maaraynta dhaqaalaha marka qoyska leeyahay inta shukaansiga lagu jiro arrintaasi waa aad bay muhiim u tahay su-aashanaad haddii aan u gudbo waxaan rabaa inaan markaan labadiinaba su-aashan ay idin dhex dhigo maxaa in laga fogaada ah oo jacaylka nacayb u bedeli kara horta waxa weeyaan ilaahay in laga magan galo weeyaan inaad jacayl adigoo qaba nacayb la gaadho waa waxa ilaahay in laga magan galo ay tahay oo maaragtay baryada ilaahay laga hoos galo biidni illaahi alkariim qof bini aadana oo noloshaadii aad ku aamintay inaad beri qofkaad ugu nacabtahay uu noqdo waxaa ku gaadhsiiyey wax yar oo fudud maaha laakiin waxaa inaan ogaana ay tahay guurka labada qof cadowga ugu weyn ee maaragtay ayuu leeyahay ee jira waana ibliis waxa kaliya uu ku taamo oo habeen walba iyo dharaar walba uu saciyo waa laba qof oo isqabta inuu kala diro muslimiin inuu kala diro reeraha inuu burburiyo ayuu ka shaqaynayaa marka haddii aan aaminsanahay cadowga ugu weyn aniga jawharna dhex yaala inuu shaydaan yahay waa inaan ka taxadarno wax badan inaan ka taxadarno iimaanka oo la kobciyo ayaa jacaylka kuu badbaadin kara oo nacaybkaa fogeyn kara khaladaadka qofka ka dhacaaya oo horey laga qabto oonan laysku fiirsano ilaa intay taraakum intuu ka dhaco ku dhow toole meel wax laga soo qabto la waayo lama rabo dumarkana badanka waxaa lagu eedeeyaa wax badan intay dhaafaan ayuu marka dambena sida volkaano camal u qarxaan lama rabo taas qofka bilaadanka mar alla markuu kugu gafo mar alla markuu khalad ka dhaco ayaa la qabtaa la joojiyaa waxaan aniga igama kaa qabata la yidhahdaa stop la yidhahdaa marka weli qofkii ma nacbanid halka dhaawaca yar ay ku gaadho waad ka kami kartaa laakiin markaan dhaafo uu sii socdo waa runoo nacayb xun ayaa ka imaanaya marka in laysku gargaaro ayaa la rabaa in laysku gargaaro oo layska qabto khaladaadka isaguna iga qabto aniguna aan ka qabto biidni illaahi alkariim oon muraayada isku noqono labadayadu sida aan uga fogaano inaan nacaybka waxaa keeni kara in ubadka laysku dhigo ubadkii ilaahay naga beeray oodadna ka maarmayn isna ka maarmayn haddii laysku dhigo waxa weeyaa nacayb xun ayuu keeni karaa marka ubadka inaanan hub laga dhigin hub in loo bedelino aabbahana lagu dhibin hooyadana lagu dhibin ilaahayna qur-aankiisa uu ku sheegay inaanan lagu xanuujin xataa masruufka inaanan lagu xanuujin aabbaha
oo maad aragtay lagu dhibin aabahana uuna ku dhibin maad aragtay hooyada ilmaha uuna ku dhibin biin ilaa karim wax walbana markii taa laga hadlayo miqyaasku waa macruuf in wax walba lagu sameeyo biin ilaa karim marka ubadka oo la iska ilaaliyo hub laga dhigo insha Allah faamiyada ee qofka waxa xanuujinaya haddii aad ku dhibtid wax xanuujinaya haddii aad ku dhibtid uu ku nacaya been ma marka wixii xanuujinaya maxaa kamid ah ilmihii uu dhalay waalidkii dhalay ya waxyaalahaas ashyaada kale oo dhan waad ka kami kartaa waxaad jeceshahay malaha gurigan baad jeclayd mise baabuurkan baad jeclayd haddii lagaa celiyo amba lagu diido waad ka laakiin hooyada iyo aabaha haddii lagugu dhibo ilmahaad dhashay haddii lagugu dhibo waxa weeyaan aad bay wax uga xanuun badan tahay intaasaan kusoo koobi lahaa marka in laga fogaado in uu xumaantu ay badato ayaa ka muhiimsan wax walba xumaanta hor la gaadhay inay yeelato ayaan ku waanina anigu waxaan ku dari lahaa runtii inta ay hiba sheegtay khayr la siiyo waxaan rabnaa inaan ka cararno xumaan wanaagii iyo jacaylkii inuunan isku bedelin xumaan iyo nacayb marka inaan isweydiino saxaabi baa jiray nabiga weydiin jiray mar walba radiyallahu anhu mar walba weydiin jiray nabiga ilaahay maxaa cadaabta lagu galaa saxaabadu la yaabi jiray ayadoo jannadii halkan taalo oo jannadii wixii lagu galiyay ay badan yihiin oo xadaran minha in asagoo iska jira oo saddu dariica yani inuu ka samaysto maxaa ku dhaday protection uu iska ilaaliyo ayuu u weydiin jiray maxaa cadaabta lagu galaa nabiga ilaahay bal ii sheeg ka cararo ka fogaade innagana waxaan u baahannahay inaan baranno maxaa gurigayga burburinaya maxaa keeni kara qofku inuu innaco kow anigu waxaan ka bilaabayaa وقولوا للناس بإله سبحانه وتعالى آيات القرآن حسنى قف أورسيت كبلا بيسيدنا دو هذا الوناكسن كل هذا الشيء مركل غيمة دوالد كاجي ولا لها وحاسك وننكا هذا المعان كله حاسك هذا المعان كله ننكا وتسيج على نسا حيا هذا الكمعاني وحدوه إيه قلبي هذا الحن أو كل مركات هذا قلبه دواعي كورقف قلبي يسون أوام qof aad mar walba irbad ku mudaysid ka war hadalkaagu waa irbad ima in aad maaragtay yaana dhibic biyo in ay noqoto kelmadaasi oo qalbiga ay qoyso wa ima inay noqoto irbad aad ku mudaysid qalbiga kelmad u fiirso marka horeysa labo qodobka labaad wax weeyaan maxaa keenay nacayb shalay shukaasiga markii la isku jiray wax waa la bixinay wax waa la isiinay iyaa yiri ninka kaliya un baa wax bixiya gabdhuhu wax way bixiyaan hadiyad bay keenaa gabdhuhu wiilka markay shukaansanayaan waxay siisaa maaragtay waxay isku jeclaysiis wiilkuna kaba daran gabadha inuu hantuu rabaa uu helo yaa akhi wixii shukaansiga la samayn jiray 40 jir marka la yahay 50 jir marka la yahay la sameeyo xadiid wax diiday ma laha qofku waa qofkaagi marka maxaa nacaybka keena hadalka xun gacanta adag dagaalka canaanta joogtada ah ixtiraam darrada rag waxay aad u neceb yihiin in hadal lagu soo celiyo waxay aad u neceb yihiin in maaragtay la qiimo jabiyo waxay aad u neceb yihiin in lagu compare gareeyo ragga kale hebel baa kaa fiican gabdhuhuna sida oo kale waxaasaan samaynaa waan ognahay waxaan samaynaa waxa la wixii keeni lahaa qoyskani inuu burburo waxaan ka caajisnay oo aanan inta badan aan samaynin waxa la wixii keensan lahaa qofkan aan la noolahay inuu jeclaado inuu ii soo dhawaado oo ay ugu horeyso naxariisto ugu horeyso ay ku xigto maartay ixtiraamku ay ugu weyn tahay aan ku celiyay ay ugu weyn tahay ilaahay inaad ugu dhawaato qofkan naxariistiisa iyo ixtiraamkiisa marka qalbigaaga hadduu ilaahay ku weyn yahay inaad ugu dhawaato qoyskaaga ilaahay inaad ku hesho wax walba ay kuu suurtoobayaan waxaan ku dari lahaa axmedow qur-aanka ilaahay laba shay baa jirta oo iyagoo fiican lagu yiri ka kasii fiican dooro waa raashinka iyo hadalka raashinka waxaa lagu yiri wixii dayibaadku ilaahay ku siiyay ugu fiican qaado kuluu min dayibaat dad mintaas waxay ka reebaysaa dayibaadkiiba sii kala reebto marka hadalkana waqulu linaas xusna ilaahay markuu leeyahay xusnigu waa hadalku kasii fiican yahay ayaad dooranaysaa marka waxaan ka wadaa qofka hadal fiican ku yiraahdo ilaahu maad fuqara ahaatiin waa isku sabraysiin ilaahu maad xanuun u qabo qofkii maad ilmo la'aan ahaataan maad dib kale ku jirtaan haddii hadal fiican iyo naxariis inaga dhaxayso wax badan baad isku dul qaadanaysaa wax badan ayuu hadalku daawo u yahay qalbiga ayuu toos u taabtaa qofku markuu hadlo waxa lagu leeyahay daaqad yar ayaa qalbigiisa isfurta daaqadaasi jawaabtaada ayaad ku awdaa marka wuxuu noqonayaa wixii
aad ku xiri lahayd ayuu hadalkaagu noqonayaa qalbigiisa isfuray marka waxaa la rabaa in hadalka aad looga fiirsado hadalka aad in looga fiirsado ayaa la rabaa oo hadal wanaagsan oo naxariis ku jirto oo ducada la barto oo ammaanta la barto oo wanaagga la barto shalay toole casharadan diyaarinay dhalinyarta u diyaarinay in maanta ka shaqayn doono maanta samayn doono waxaa ka mid ah qofka magaciisaad soo qaadaysaa xuruufta magaciisa oo ka samaysan tahay ayaad xaraf kastaba ammaan baad ka dhigaysaa أحمد مجلس اسمه أقدح وحن كده أمان هذا أمان بان كده أقدح أمتى يو مارتي ديدا حرف كستبا أمان بان كده كون قف كسون قناة قف كان مجلس يبقى أمان كوضع دقيق on كود ذلك أم بورقة يرجو قري أم بميلانو دقيق أم بعجلة دقودوبي أم بمسجرانو دقودوبي مكو حال الربا إن culture كارت إن لقى دكتور فن إن لقى دكتور إن لقى تلحتجو هذا البهذا الكوكب حسين aada u mahadsantihiin sida waafiga ah aad jawaabtaas inaga siiseen haddii aan hore usii gudagalo su-aalahan oo aad u fara badan waqtiga oo nagu yar awgeed waxaan isku dayi doonaa inaan su-aalaha aan soo koobo maxaad kula talin lahaydeen dhalinyarada guurdoonka ah rag iyo dumar sifaadka ugu wanaagsan ee isku dooqan lahaayeen khayr allah ku siiyo bila waa su-aal runtii dhalinyarada shalayna ayna weydiiyeen meel walay joogaan dhalinyaraduna ay isweydiiyaan qof maxaad ku dooran kartaa taxadiga ama challenge-ka dhalinyarada haysta shalay markaa weydiinaya meelo kale ku weydiinayba waxyaabaha ugu horreeya tilmaameen waxay dhaheen khalal ka jira doorashada yacni doorashadii baa problem ku haysa dhalinyarada wiilkii gabadh xijaaban buu rabaa gabadh tukanaysuu rabaa gabadh asturan buu rabaa waxaa dhici karta isagu inuunan maaragtay intaaba iska xijaabin يعني قبل ده أسطورنا حجابنا تكني شيء بعد يستوي طبعا عدو وناكسر ما محي وكمان حمام وردن سليم كأه سما وأنا سوق قرين وأنا محاكرة ذا ميلا فالفحول أنا لو أركن ما قرت السجرة واحد يكرتين وده لفتي سوق سوري ما قرنيس مرك قبل دونا سلا سلك وحي ربطها ويل أنت هسيسوها له ومساجدك وحرن أو وناكسن أو طبع في عن أو والدك يسوي في عن أنا قبل كوحان تلمانا طبعا ويبذيه واحد بدن أو شيء كو وحرنا وصلينا وحول بدل يرد وحنا حنا وحقوق الرئيس أقوم يمسك كيف كريسين وإنه نقودين دل يرد قارفود بقى وحكون ضاذين وشيخ وانا عبياشين هو يمكن مركز كورسين هاي ما يقدين يوحد هذه إسكسا قعدنا عليه دولار بعض قيدي يا أوكي halkay ku noolaayeen iyagu waalidkeen waxay ku noolaayeen jawi diineed jawi dhul muslim dhul dhaqanku uu yahay dhaqan islaamka la maaragtay lagu nool yahay oo la ilaaliyo xataa hadday inta aad maanta diinta ka taqaanay adigu aynan iyagu ku aqoon haddana waxay lahaayeen dhaqan values baa jiray qiyam baa jiray ay ilaalinayeen ay xifdinayeen ay dhowrayeen ixtiraamayeen adiga maanta waxaa dhici karta inaad qurbo ku nooshahay meel qaawanaantu ay badan tahay inaad joogto meel social media wax kasta aad indhahaaga ay ku dhacaysaa aad joogto marka waxaa la isku dooran karaa kow waxaan dhahaynaa qofka diinta diinku dooro diintu marka khamiis ma aha ogow aan kuu sheegay gabadhay khamiis ma aha gadhna ma aha garhku kuma qabayo khamiiskuna kuma qabayo gabdho badanoo waxaa jira masaajidda intay tagaan soo qoro oo masaakiino farta loogu fiiqa mid khamiisita laakiin guriga markuu yimaado wuu nooc kalaya igama aha in aan qofka khamiiska sita aan ataagayo laakiin waxaan aragnay intaasoo khamiis sidata oo maaragtay caytamaysa oo gacan qaadaysa oo gacan adag oo akhlaaq xun oo aan qaarkood qur-aankii maaragtay diinta ay matalayaan ama ay isleeyihiin waa tihiin dhaqankeedii aan lahayn diintuna waa dhaqan diintu maaha sheegasho waa dhaqan weeye waxaan oranayaa marka wiilkana ha ku lugin gabadh jilbaaban ama niqaaban niqaabka maxaa ka hoos jira hadde waa in la ogaada mugta marka waxaan kula talaynaa wiilasha iyo gabdhahaba in ay ka dhaqaaqaan xadiiskii nabiga idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqa wiilka iyo gabadhuba diin iyo khuluqa isku doortaan xoogga ha la saaro khuluqa diinta meeshaas marka laga hadlayo waa cibaadaduna shakhsiga iyo ilaahay bay ka dhaxaysaa keliya inta badan laakiin khuluqu iyuu ka dhaxeeyaa
mucaamalada ummadda bini'aadanka iyo maaragtay environmentka iyo xayawaanka iyo qaranka iyo ha waa in uu noqdo qofkani qof aamin ah qof maaragtay gacan furan qof rusheega ah istijaabiya istestigareeya waa la istestigareeya inteedaan isguursanin marka waxaan ku odhan lahaa asturnaanta isku doorta runta isku doorta quruxda isku doorta diinta ugu weyn diinta la isku doorta aniga intaasaan kusoo koobi kulley macallin jibana waan u dayni insha allah may anigu waxaan dhihi lahaa doorashada wax badan baa laga hadlaa see la isku doortaa laakiin waxaa aad nooga maqan halkee la isku baran halkee dadkan isku baranayaan lagu kulmi ها كشقيان شالي تولي برنامج شو مساجد كقبلنا دليرتان وقبلنا إن قبلهنا ميل حب كاس والله بكي قلنا ويلشينا ميل كلو الله بعيي قلنا اسمه أركيبه مركا قبل كل جرتا وحي تردد كميش على قصة صاروا هاي أركان بل مركا وان كده واجناني أحمد والولا على يالو كين العشر كقاضني هذا يلا بيسكبرت عم بعفر يسكبرت أو يسكور سدان وحشرف لوين مسكيد اللي يسكبرت مركا مساجد يا سنترد إنك كشقيان دليرتا إن إسبرتان أو لو فضيديو إن ميلها كل أي وضع شقيان أي وضع هلان أي الله ربا وهي قفك environment كأد كلا طي wuxuu door weyn ka qaadanayaa noloshaada dambe qofaad Facebook ku baratay iyo qof ma aragtay aad miskiid ku dhex baratay oo aragtay isagoo hadlaya isagoo wax qabanaya isagoo miskiidka u khidmeynaya aad aragtay uu kaaga dhow yahay qof Facebook aad ka baratay oo sawirkaas iska beenbeenta ah oo meesha soo dhigto marka in loo sameeyo dhalinyarta duruuf ay isku bartaan iyo conditionno iyo meelo ay isku bartaan oo ma aragtay munaasab ah ayaan ku darlaa meeshaas oo kale si aan ugu baraarujiyo waxaa ka mid ah ardayda unionka ay leeyihiin anaga ingiriiska oo kale Islamic societies wax la yiraahdo jiro oo dhalinyaradu ay ku dhex shaqeeyaan projectyada masaajid ay sameeyaan hadday rixlad tahay oo maaragtay la israacayo haddii wiilasha oo kale maxaan ku rahday barnaamijyada ay fuliyaan baa lagu garan karaa wiilku inuu leader yahay inuu leader ahayn marka meelahaasa lagu kulmaa oo la isku bartaa insha Allah taala khayr ma hadisi ugu dambeyn sidaad u aragtaan socdaalka aad ku joogtaan magaalada Bergen oo ah caasimadda labaad ee dalka Norway isla markaana ay ku nool yihiin Soomaali aad u fara badan maxaad u soo jeedin lahaydeen Soomaalida magaaladan iyo guud ahaan Soomaalida meel walba adduunka ay kaga nool yihiin bismillah alxamdulillah horta magaalo Birmingham la yiraahdaa ka nimidnay magaalo Bergen la yiraahdaa waa nimidnay ajiib عاصمة اللبات بانك نمني عاصمة اللبات بانا نمني تاس صرت ولا لا كنا هيدا كاس برجن أنا جو رمتي إني جرت حتى نلا شيء ده من مقال برجن ولقي ما نقول إلا أنت كإيمانا إن أوصل الكلية اللي أقاني مركا مجال ده ومجال بورلية ومجال قرح بدن ومجال مارتي دكن ومجال لغون نسط مجال أهم مكان فيرنا أنا كمل بوك بدن أو ورير إيه أمبولانس إيه بوليس إيه عيرسنا إيه رفات أيان كنا من لكن دول دكن إذا كانوا ويدي كم وقتها شيء برجنا وكم وقتها سيدي مجال دول دكن تاعي ودكنيهم إن سومالي ده مركان سو نقطة إن سنتر إلى الليلهين إن سومالي ده أدسو حرنتهين إن كسر دباتون فربضن عاد قبتين لكن إنتان ضد لها اللي أبنو ورمي وحن كلا صورح بحي إن أكد داشين وحدة الصومالي نماد إن دل السين وما دركتي إسكو حرناتان لأن الظروف هني هيستأيا السبب هي إن إسكو حرناتان صومالي دو وينو أدركتها إن الوحي يرميل وذا جوجو أم بماركتي شقا كومن عن آد وإلالينو waxaa individualka amba shakhsiga loo leeyahay la ilaaliyaa laakiin wixii dadka ka dhaxay lama ilaaliyo dhaqankeena waxaas yaad moodaa cilada yar inaan qabno marka waad ka duwan tihiin aragtidaan arkayno anagu ma aragtay Bergen dadka ku nool insha Allah waxaan anigu rabaa oo ku dari lahaa in dhalinyarta ay wada saaro dhalinyarta dhulka ku dhalatay in diinkooga inta la baro waayo dul aad u soo fogeeya dagatihiin diinkooga inta la baro in xuquuqdooda iyo waajibaadka saaran ay gutaan aad loo baro biidnillaahi kariim insha Allah in la isku sii xirnaadana waa muhiim magaaladeena runtii waa magaalo qurux badan dalxiiska iyo magaalada hal la barto in hal la arko ma aragtay ay opportunity-yada magaaladu leedahay intaas aan ku soo koobaya aad baan ugu faraxsanahay Bergen inaan imaado oo barto khayr la kusiyo higo aniga waxaan ku darsan lahaa magaalada laba sifo ay leedahay oo markaan airport ka soo degnay magaceedana waxa cajiib ah magaceedu waxa ag yaala
علامة سؤال question mark Bergen question mark marka waxaa la injineerkii sameeyey wuxuu ugu talagalay markii la weydiiyey leeyahay maxaad u samaysay sidan wuxuu yidhi dadku markay soo galaan iyagoo boorina inay soo galaan ma rabe inay su'aalo isweydiiyaan oo Bergen maxay ahayd oo Bergen maxaad oo maxaa ka jira xalay aniga iyo hiba waxaan kornay magaaladu waxay leedahay 7 buurood oo cajiib waa magaalo roob socota ah oo qabowgu halkaa uu ka yimid iyo naxariisto cajiib marka buuraha buur kamid ah xalay aan kornay aniga iyo hiba waa suuragal inaan videoga soo duubnaa soo dhigno tamaashaadkii iyo sanadkii cusba fireworkii la ridayay ayaan soo daawan cajiib cajiib runtii roob da'ay roob kama aan dareemaynin yacna maxaan ku dhahdaa farxadii ay dadku farxayeen iyo maaragtay waa meel cajiib badan dadkeena Soomaaliyeed ee ku nool si aan caadi ahayn bay noo soo dhaweeyeen waxaan aad ugu mahadinayaa runtii Sheekh Cabdulla Diif imaamka masjid Bergen Mosque oo soo casuumay annaga fadliga Ilaahay ku soko fadli weyn buu ku leeyahay arinta khayr Allah siiyo iyo dad badan oo soo dhaweeyay oo mutabari ka soo qayb galay kuwa guryaha nagu soo casuumay Ilaahay khayr siiyo Allah barakeeyo ilaa maanta oo fadhino oo ayna wareysanayaan bile iyo maaragtay oo report aad u qurux badan Facebook ka fiirsada report aad u qurux badan mu'tamarkii ka qoray waa qoraaqii badan Ilaahay barakeeyo dadka panelka dooda kamid ahaa Cabduqaadir oo gudoomiyaha jaaliyada ayaa joogay oo ka geystay yacna contribution isaga iyo maama Maryam iyo maaragtay walaal Ibrahim iyo Xasan dad aad u qiimo badan marka sida dhalinyarada hadda naga duubaysa videoga oo aad uga faa'iideysanaysiin iyagana loo duceeyo Ilaahay barakeeyo aniga waxa oran lahaa dadka Soomaaliyeed ee Bergen ku nool meel waxay ku nool yihiin horta marka hore sidii hiba iiga hormartay waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno walaalaynta Birmingham iyo Bergen ma iga sadaqaysiin labadii cisho u horeysay Bergen ma dhahayna Birmingham ma dhahay marka sheekh waxa joogtaa ma leeyahay Bergen waxa iiga horeysay inta Bergen intani Bergen baan dhahay maxaa yeelay Bergen Hollandiiska iyo Scandinaafku way isku egyihiin marka runtii way isku magacayeen marka waxaan dhihi lahaa khayr Allah idin siiyo jaaliyadaad qabtiin maamul baad qabtiin dhalinyaro idin maamusha gabadh bushara la yiraahdo aragnay oo maaragtay aad active ah marka dad active bushara ka wada dad aad active ah ayaad leedihiin in la sii kobciyo wada jirka iyo maaragtay maxaa yeelay wada jir ba xoog lagu leeyahay oo xoog lagu sameyn karaa oo wax lagu qabsan karaa qodobka ugu dambeeya rabo inaan ku darsado dabcan waan arkay business ina leedihiin center ina leedihiin meelo dadku ay ku kulmaan oo soo shaqaysa ku sameeyaan dumarku iyana guryaha kaliya uun ku caburin xalibaan aniga Sheekh Almasbaran isla soconay oo aan aragnay dhalinyaradu meel ay ku sheekaystaan oo soo baxaan wiilasha qoysas kale waxaan mar walba kula talinaa fursad inay siiyaan gabdhaha meel ay ku kulmaan ama maaragtay in ciyaalka inta laga reebo gabadhu ay soo baxdo oo maaragtay ay soo yara qaadato isfagaarayn iyo fresh air ay soo qaadato arrintaas caafimaad badan ku jira runtii waayo wiilku caafimaad buu soo helaya gabadhuna waa inay caafimaad hesho ugu dambeyntii waxaan oran lahaa wax akhriska waxaa la inagu eedeeyaa bulsho hadashaan nahay bulsho wax qasbanay waxaa halka idin kula talin lahaa buugga uu qoray bile khayr Allah siiyo oo ka sheekeynaya nolol cajiib ah nolosha qurbaha nolosha qoyska noloshii dhulkiinii aan ka imanay markaan ka soo cararaynay aan soo cararayno maxaan ku idhaahday qurbaha inaan imanno qurbaha maxaa ka soo horeeya wax badan buu halkan buu taxay hordhaca ayaad arki doontaa markaan arkay hooyo aaba kala cararayo ilmahoodii la qaadanaya markaan arkay jacaylkiyo la qabiileeyay laftigiisii markaan arkay yani waa cajiib runtii marka waxaad dhihi lahaa buuggaan iyo buugaanta la midka ah hal akhristo khayr Allah idin siiyo qoysaska iyo dhalinyarada isku diyaarintu waxyaabaha anigii hibo aan aadka uga faa'iidnay ilaa maantana aan sameeyno kuna badbaadnay Ilaahay fadligiisa ka soo wax kamid ah wax wada akhriska labada isqabtay mataanaha iyo labada rabtay inay isguursato waxa wada akhriyaan waxaan ku daray Axmedo maktabad buugaanta Soomaaliyeed lagu soo ururiyo hadii la sameyn karo hadii jirto way jirtaa
haddayna jirin maktabad yar amba loox press baa jirta maxamed cabdi loox press masaajida buugaanta Soomaaliyeed aniga waxaan dareemay dhalinyartiina Soomaaliga si fiican bay uga hadlaan luqadda hooyo alxamdulillah marka in loo sii adkeeyo maadaama luqadda Soomaaliyeed ku qoran tahay waa la rabaa ta kale bila waxaan ugu maaragtay hambalyeynaya isla markiiba dareenkiisa iyo wuxuu arkay buu qoray marka bila hadduu maanta naga dhoofo hadduu adduunka meeshuu doono qabto ilaahay ma qadar haday tiisiisa gasho waxbuu reebay waxbuu ka tagay marka waxaa la rabaa inaan mar walba wax ka tagno shay kastoo daragtid annagana dhiirigelin bunooyin annagana waa soo socdaa insha Allah inna lillahi kareem marka inaan wax qorno inaan wax wada akhrino markaan qorno se inaan meesha uga tagin qoraayaasheena aan qiimeeyno oo ku faano yaa qof markuu wax qoro waxa la yiraahdaa cimrigiisii ayaad qaadatay cimrigii bila uu ku qoray buugaas haday sanad ahayd haday 2 sano ahayd anu markaan akhriyo cimrigiisii baan qaatay 2 sano waan haystaa buuga 5 sano lagu qoray 5 sano haysta marka waxa dhici karta adoo 30 jir adoo 20 jir inuu cimrigaagu yahay 80 70 liana waxaad akhrisay intaayo kutub ayaad akhrisay cimrigii aqligaaga ayaa kordhay cimrigii jidhka ayaa jira iyo cimriga waxa jira aqligaaga waxaad ka noqon kartaa qof weyn maskaxdii jidhkiina waxaad ka noqon kartaa qof da'dii uu jiray ayaad ka noqon kartaa marka buugaanta la xoojiyo hala fudaydiyo akhriska laftigiisa sabir buu baahan yahay in lagu sabro weeyaan iyo barasho oo la akhriyo iskuulada waxba lagu akhriyaa marka dhalinyartu ha akhriyaan hooyooyinka ha akhriyaan aabayaashu akhriyan ha caadaysto qofku inuu buug wato mar walba boorsadiisaas waa inuu kitaab yar kala soo bixi karo boorsadayda hadda kitaabka yar baa igu jira oo akhrinayo marka waxa la rabaa inaan buuga bilana ku darsado oo akhristo biidnillahi kareem ila khayr aydiisiyo wad maasantiin jazakumullah